بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا ونكسن داوديال idilkiin meel walba joogtaan isoo walba inoo maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kulanka xiisaha badan ee galabta laga ciyaari doono horyaalka Soomaaliya Premier League ee dalkeena garoonka Engineer Yuriso Stadium ayaa waxaa galabta ku caltami doona kooxaha dekedaha ee Muqdisho City Club ciyaar qayb ka ah horyaalka Soomaaliya Premier League kulankan ayaa mid aad u xiiso badan labada kooxood ayaa diyaar garow xoogan u galeen kulankan in midkood uu badiyo waana kulankiisa 12 laga dheelayo fasal ciyaareedkan horyaalka Soomaaliya Premier League 2019-20 labadan kooxood ayaa ciyaari doona galabta kulankii ugu horeeyay horyaalka Soomaaliya Premier League wajiga koowaad waa ciyaar laba waji leh taas oo aan kala jeedo dekedaha oo rabta inay dib ugu laabato hogaanka horyaalka iminka ay heeso kooxda Elman halka MCC ay dhankeeda daneynayso ama damacsan tahay inay soo cariirsato kaalmaha koowaad ee horyaalka hadaba xaqiiqda ciyaarta laga diiwaan geliyay hadii aan fiirino shantii kulan ugu dambeysay labadan kooxood ee dekedaha iyo MCC isku arkaan horyaalka Soomaaliya Premier League waxa afar ka mid ah adkaatay naadiga dekedaha halka kulan kalena ay barbarac ku kala bixeen labada dhinac taas oo ka dhigan in laga itaal roon yahay kooxda Muqdisho City Club wiilasha MCC ayaa waxay ku riimayaan inay soo gabagabeeyaan taariikh xumada ka heysata kooxda dekedaha taas oo ah in muddo dheer aysan horyaalka kaga adkaan kooxda dekedaha naadiga dekedaha ayaa ku jirta kala sareynta horyaalka kaalinta labaad iyadoo farqiga goolasha lagu hayo kaalinta koowaad waxay leedahay 14 dhibcood halka MCC-na ay ku jirto booska afraad ee horyaalka iyadoo leh 12 dhibcood ciyaaryahan Faisal Xasan Xaashi ayaa galabta ka hor imaan doona kooxdiisii hore dekedaha isagoo imika matalaya naadiga MCC waa kulankii ugu horeeyay horyaalka Soomaaliya Premier League oo wajaho naadigiisii hore ee kooxda dekedaha isagoo matalaya koox cusub ee MCC kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club kulan galabta waxa ka maqnaan doona xidigooda lagu magacaabo Faisal Azad kaas oo ku seegay ciyaarta weyn xaalad qoys ama problem family sidoo kale kooxda waxaa dhaawac ugu maqnaan doona kulan galabta kabtankooda hogaamiye Ciise Cabduqaadir kaas oo shil mooto ku galay magaalada Muqdisho taas oo sababtayba inuu awood u yeelan waayay inuu kulankan ciyaaro naadiga dekedaha ayaa wili waxay weydoontaa dhaawacna ku weydoontaa daaficida birta Idris Amiin Cali kaas oo kulamada ugu dambeeyay kooxda ugu maqnaa dhaawac kooxda kubadda cagta dekeda kulanka ugu dambeeyay horyaalka ay ka dheesho waxay barbara eber la soo gashay naadiga Cultumaan ee Horseed wiilasha MCC ciyaartii ugu dambeysay horyaalka waxay 3 ugu soo adkaadeen naadiga Jazeera Sports Club tababaraha kooxda Muqdisho City Club Mohamed Msirlam Jed ayaa ka hor imaan doona kulankiisa ugu horeeyay horyaalka Soomaaliya Premier League isagoo hogaaminaya kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club naadiga dekedaha wuxuuna soo afjari karaa galabta ayaa leeyahay in uu soo gabagabay taariikh xumada ka heysata in kooxda MCC ay ugu adkaan lahayd horyaalka Soomaaliya Premier League naadiga dekedaha hadaba isariga labada kooxood afartii bisha Afriil 2019 dekedaha MCC hal iyo eber dekeda ayaa ku adkaatay silamada kulankii xigana 3 gool iyo 2 gool dekeda hal gool eber dekedaha eber ay kula bixeen kulanka ugu dambeeyayna hal iyo eber ayana ciyaartaasi ku dhamaatay ciyaartan ayaa galabta soo gali doonta 9 saac iyo bar Engineer Yuriso Stadium ayana ciyaarta ka dhici doonta dekedaha ee Muqdisho City Club ayana kulankan dhaxmari doona hadaba daawad hadii aad daawanayso muuqaalkan aragtidaada ka dhiibo kulanka weyn dekedaha ee Muqdisho City Club waa mid ku furan adigana oo aragtidaada ku cabir kartid cidda guush u rajeynaysid waad maasantiin daawashada muuqaalkan hadii bartaan kugu cusub tahayna subscribe like iyo share comment-gana haniga ilaawin maasanidin mar walba si aad inoo dhiirigelisaan waa idinkaga mahad celinayna